doodii qabyaaladda iyo falsafadeeda runta ah. Waxay tidhi sidaad damacsan tahay dani hadday yeesho dariiqii abkaa iyo haddaad duugto dhaqankaaga, waxa iga dardaarana hal aan kaaba degahayne. Dadku wadadad weeyaan haddana kala dun roonroone, darajay ku kala soocan yihiin dabaqad reeruuye, sida aan dameer iyo fardiyo awr u wada daaqin, ama aan digaag iyo shimbiro heer u wada duulin, ayay tahay darxumo weyn haddii laysku keen dare. Digniintaydu waa inaad midhkaa dib u xasuusnaato. Dalkana waa la kala leeyihiyo doogga soo baxay, sida dulinka xoolaha cid yaan lagu dul noolaanin, ninba daayinkii meeshuu dhigay door ha ku ahaado. Waxaan idhi sirtaan doonayaa dooxday adigiiye, dembigaagii wuu ii cadiyo ma laha doondoone, dawadiina waa loo hayaa doogta bi'in layde, deer ilaahay dumidaada waa loo dabaaldegiye. Dadkaad kala sarraysiinaysaa waa uliya diire, waa duudii nebi aadan iyo qoys durriyadii, yaa darajadaad sheegaysiiyo dabaqyada u qaybshay, sow diirka maariin madow deeqsi kama yeelin, sow diinta layskuma dhalee maxamed may dooran, sow dacalka xeebteennan dheer degel kama yeelan. Dood kalena waxaan kaaga naqay doogga soo baxay, dalka waxa leh ruuxii degay xoola daaqsade, dalka waxa leh daar iyo ninkay dalag u beermaane, dalka waxa leh kii lagu dihdeen dooran meel kale, dalka waxa leh duulkan ku iman dirir colaadeede, dadka yaa u kala qaybiyo dacalba reersiiyey, deeqdii ilaahay kumaa kaaga dhigay dowlad. Dooda gabaygaas 103 bayd weeyaan. Waxaan usoo baxay sanadii 19 bishii 2 2003. Waa 20 sano ayaa maanta laga joogaa. Carruurtii habeenkaa iyo wixii ka dambeeyay dhalatay ayaa maanta qori u sita qabyaalad oo u dhimanaya. Maalin kasta geeridooda lasoo sheegaya. Subxaanaka yaa cadiim. Aad iyo aad baan uga xumaa.